السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ركني وتلفزيون كبرشة تي في استوديو سكوادي مقالة برعاء سوق على وقت كان نديس وقبلش نور وش دلك قديس يدبدي وسوق عليه كبر سوق هذا قضبة ورقاقة إحنا كحيان كسومالي لأنه كل مرقار كتسن هيدا دولة وإنها دولة كم الجار كسومالي وبقى هيدا عالمي إن يحفزوا سوريان مقالة مودشو إثيوبيا نوحاشك إن الدشقار كتير سن شبهد الرد على انتهاء يوم الأف وركمل أفريقيا ayaa isaguna maanta shir uga furmay magaalada Addis Ababa dawladda Mareykanku waxay shaacisay inay joojisay fulinta xukuumadda dilka ah dagaalyahanada Taliban oo sheegay inay iyaguna gubeen 6 booyadood oo ay leeyihiin gaashaanbuurta NATO intaasi daawadayaal waa qodobadii warka oo kooban imikii haatan ku soo dhawaada warkeena oo fidsan ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta kormeeray qaar ka tirsan hay'adaha dawladda warkan oo faahfaahsan waxayna hayaa وريه محمد إبراهيم حسن محمد بريتش مدحوينه ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa maanta kormeer kadisa ku maray qaar kamid ah xarumaha hay'adda dawladda isagoo halkaasi warbixin kaga dhageystay mas'uuliyiinta hay'adahaasi xarumahani uu maanta booqday madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa kamid ah hantidhowrka guud ee qaranka hay'adda shaqaalaha dawladda dugsiga tababarka shaqaalaha dawladda iyo waliba guddida qandaraasada qaranka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo saxaafadda la hadlayay isagoo ku guda jira kormeerkiisa shaqo ayaa sheegay inuu ugu kuurgalayo sida ay u socdaan shaqooyinka xafiisyada dawladda wuxuuna sheegay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu kormeerkiisa ku jiray inay dhamaanba ku wada sugnaayeen shaqooyinkaasi marka laga reebo buu yiri hantidhowrka guud ee qaranka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo agaasimaha dugsiga tababarka shaqaalaha dawladda kuwaas oo sheegay inay ka maqnaayeen hawlahooda shaqo kormeerkan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya waqti ay cabasho badan ka taagan tahay hawl maalmeedkii xafiisyada dawladda oo hoos u dhac badan ku yimi isla markaasna waqtigii shaqo ay xukuumaddu u qorshaysay inay shaqaaluhu shaqeeyaan oo ahayd 7 ilaa 12 duhurnimo inaanay shaqeynin oo aad arkayso xafiisyada dawladda oo aan haba yaraatee wixii 12 ka dambeeyay aan shaqeynaynin inkastoo la kordhiyay mushaaraadkii shaqaalaha dawladda 100% haddana waxa loo aanaynayaa sababta shaqooyinka xafiisyada fadhiidka u noqdeen inay ugu wacan tahay kharashaadkii ay xafiisyada dawladda ku shaqeyn jireen ee miisaaniyadda ugu jiray oo la joojiyay awgeed kadib markii ay soo bixi waayeen lacagihii laga filayay inay ka soo xeroodaan goobaha dakhli ururinta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isaguna ugu baaqay hay'adaha caalamiga inay xafiisyada u soo wareejiyaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya madaxweynaha waddanka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku sugan dalka Itoobiya ayaa ugu baaqay hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya in ay u guuraan dalka gudihiisa si ay uga shaqeeyaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hordhigi doona kulanka IGAD hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay xafiisyada midowga Afrika ka shaqeynaya Soomaaliya in ay guuraan gudaha dalka si ay hawshooda halka uga wadaan war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka dalbaday hay'adda gargaarka iyagoo ku sugan gudaha dalka oo ay wax ka qabtaan xaaladda bini'aadanimo ee dalka ka taagan madaxweynaha ayaa sheegay inay hadda kaalmooyin la gaarsiin karo gobollo iyo degmooyin fara badan oo lama huraan u tahay inay hay'adaha u guuraan Muqdisho si ay u caawiyaan dadka abaaraha ka soo barakacay una gutaan shaqooyinkooda ku waajahan Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha u aadka muddo 50 sano soo maray madaxweynaha ayaa wuxuu safarkan kaga qayb galaya shirka IGAD waxaana weheliyaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Fiqi xildhibaan Xasan Abshir iyo saraakiil tiro badan dawladda Mareykanka ayaa shaacisay inay yaraysay fulinta xukuumadda dilka ah warkan waxaana hayaa وريه أمين بشير نور warbixin ay maalintii shalay soo saartay wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada dadkii xukunka dilka lagu fuliyay sanadkan ay hoos u dhaceen taasoo lagu sababeynayay irbadaha sunta ee lagu daro dadka la dilayo oo qiimo qaali ah ku fadhiya iyadoo ay waqtigan xaadirka ah dhaqaalaha Mareykanka hoos u dhac ku jiro fulinta xukunka dilka ah ayaa sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda ee u baahan miisaaniyad dhaqaale oo aad u ballaaran
xafiiska fulinta ee xukunka dilka oo sidoo kale warbixin uu soo saaray ayaa sheegay in sanadkan uu fuliyeen xukunka dilka ay hoos u dhaceen boqolkiiba 12 iyadoo tani ay tahay sida ay sheegeen hoos u dhici ugu hooseeyay xukunka dilka ay fuliyeen ilaa iyo waqtigii si rasmi ah Mareykanka looga bilaabay sanadkii 1976 gobolka Texas ayaa noqday gobolka xukunka ugu badan ee dilka ee lagu fuliyay iyadoo tirada guud ee Mareykanku ahayd 46 fulinood oo 17 ka mid ah gobolka lagu fuliyay sanadkii 2009 ayaa xukunka fulinta ee la fuliyay ay dhamaayeen 56 xafiiskan oo xaruntiisa tahay magaalada Washington ayaa sheegay in hoos u dhac uu ka yimi fulinta xukunka dilka ah oo sabab u tahay qiimaha qaaliga ay ku fadhido suntan oo ahayd irbad ahaan looga adeegsado taasoo ay miisaaniyad ahaan tahli waayeen in ay xaddi ku filan soo iibsadaan yaraanshaha suntan ayaa keentay in 5 gobol oo dalka Mareykanka ka mid ah ay joojiyeen gabi ahaanba in ay fuliyaan xukunka dilka ee maxkamadda gobolada ay soo saxeexeen dowladda Itoobiya oo sheegtay inay dishay qaar ka tirsan dagaalyahaninta ONF warkan oo faahfaahsan waxa isagoo inoo haya mar kale wariye Maxamed British telefishinka dalka Itoobiya ayaa baahiyay axadii shalay in ciidanka Itoobiya ay dileen 15 dagaalyahan oo ka tirsan jabhadda ONF oo ka soo gudbay dhanka xuduudda dalkaasi la wadaagta Soomaaliya dhamaadkii bishii hore si ay qalalaas ugu abuuraan bay yiraahdeen dalka Itoobiya waxa kale ay ciidamada Itoobiya qabteen 6 dagaalyahan oo ONF ka tirsan iyo 2 wariye oo u dhashay dalka Sweden oo dhaawacyo qaba saraakiil u hadlay dawladda Itoobiya ayaa iyaguna sheegay in xoogagga ONF iyo waliba labada wariye la socday ay 27 bishii hore ka soo gudbeen xadka ay Soomaaliya iyo Itoobiya ka wadaagaan gobolka Mudug waqti iyaga iyo ciidanka Itoobiya uu dagaal ku dhex marayay deegaanada Jalaale iyo Luwa oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya jabhadda ONF ayaa tan iyo sanadii 1984 dagaal xorriyadoon ah kula jirtay dawladda Itoobiya waxaana mas'uuliyiintoodaasi sheegeen inay u dagaalamayaan sida ay dhulka Soomaalida uga madax banaanaan lahayd dawladda Itoobiya inteeda kale xubno u hadlay jabhadda ONF ayaa iyaguna sheegay in wariyaashu ay doonayeen inay xog ka helaan gobolka Soomaalida Itoobiya waxayna ku eedeeyeen in Puntland ay gacan ka geysatay sidii lagu soo qaban lahaa labadaasi wariye haddaba wakaaladda wararka Itoobiya ayaa iyaduna sheegtay in dagaalyahanadani ka tirsan ONF ee la dilay lagu helay hub kala duwan iyadoo sidoo kalena ay xustay in kuwa nool ee la qabtay ay wateen hub fudud iyo waliba bambooyinka gacanta sidoo kale mid ka mid ah wariyaashan ayaa wakaaladda wararka ay sheegtay inuu hore lagu qabtay dhulka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya isagoo doonayay inuu warar aan jirin ka faafiyo dawladda Itoobiya ururka midowga Afrika oo maanta uu shiruuba furmay magaalada madaxda dalka Itoobiya Addis Ababa warkan oo faahfaahsan waxa inoo haya Maxamed British warar ka soo baxaya caasimadda dalka Itoobiya ayaa sheegaya in madax iyo xubno ka tirsan urur goboleedka IGAD ay gaadheen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya si ay uga qayb galaan shir maanta ka furmaya caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa shirkani ayaa diiradda lagu saari doonaa xaaladaha dalalka Suudaan iyo waliba Soomaaliya waxaana aad looga hadli doonaa koonfurta Suudaan oo 9 bishan go'aanaystageeda ka qaadanaysa waqooyiga Suudaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda kumeel gaadhka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka kooban wasiirro iyo saraakiil ka tirsan dawladda kumeel gaadhka Soomaaliya ayaa lagu casuumay in shirkaasi ay isugu imanayaan urur goboleedka IGAD ee ka dhacaya caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa wafdigani uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda kumeel gaadhka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaana shirkaasi lagaga wada hadli doonaa sidii gacan weyn looga geysan lahaa nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya oo muddo haatan 20 sanaba ay aafeeyeen dagaal la sokeeyo ka socda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya warkeena ugu dambeeya waxa uu noqon doonaa dagaalyahanada Taliban oo sheegay inay gubeen 6 booyadood oo leeyihiin gaashaanbuurta NATO warkan isna waxa inoo hayo faahfaahinaya wariye Maxamed British wararka naga soo gaaraya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in rag hubaysan ay dab qabadsiiyeen booyado shidaal u siday ciidamada isbahaysiga NATO ee ku sugan gudaha dalka Afghanistan 60 booyadood oo ah nooca shidaalka qaada ayaa goordhaweed dab la qabadsiiyay waxaana isla durbadaasi weerarkaasi lagu gubay 6 booyadood sheegatay xoogagga Taliban ee ka dagaalama gudaha dalka Afghanistan dagaalyahanada Taliban ayaa hore u gubay boqolaal gaadiid iyo waliba booyado ay leeyihiin ciidamada gaashaanbuurta NATO waxaana ay haatan ay sare u qaadaysaa weerarada
ay ciidamada NATO ku sameyn doonaan dalka Afghanistan. Si kastaba ha ahaatee weerarada ay dagaalyahanada Daalimaan ay ku qaadayaan ciidamada gaashaanbuurta NATO ayaa imanaya xilli ay dalkaasi ku sugan yihiin 150,000 oo askari kuwaas oo ka kala socda dalalka reer galbeedka. daawadayaal intaas waxaa ku eeg war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa aan idinka haynay oo idinka soo tibinay studio-hayga magaalada Burco ee telefishinka Bulsho TV. intaynu warkan la mid ku kulmi doono waanigo maxaa aan diraa idinkaga tagayaa nabadgelyo.